xisbiga madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee AK Party ayaa rajeynaya inuu mar kale hanto gacan ku haynta magaalooyinka sida caasimadda dalkaasi Ankara iyo magaalada weyn ee Istanbul. Maanta waxaa 81 gobol ee dalka Turkiga ay shacabku u dareereen codbixinta doorashada dawladaha hoose, iyadoo si gaar ah indhaha loogu hayo magaalada ugu dadka badan Turkiga ee Istanbul. Iyadoo maanta ay dalka Turkiga ka dhaceen doorashooyin muhiim ah, waxaa si weyn isha loogu hayaa magaalada Istanbul oo ah magaalo dhaqaale ahaan iyo baaxad ahaanba ugu weyn Turkiga. Ku guuleysiga doorashada duqa magaaladan ma ahan oo kaliya guul siyaasadeed, balse sidoo kale waa dariiq lagu xaqiijinayo dhufayska xooggan oo saameyn weyn ku yeelan kara siyaasadda qaranka Turkiga. Gudaha Istanbul, magaalada ay ku nool yihiin 16 milyan ee ruux ee hogaaminaya dhaqaalaha Turkiga, waxay sheegayaan fikrado laga ururiyay in duqa xilliga kan ee magaalada oo la yiraahdo Imamoglu uu wajahayo caqabado aad u xooggan oo kaga imanaya dhinaca musharaxa cadaaladda iyo horumarka ee uu wato madaxweyne Erdogan oo la yiraahdo Murat Kurum, horeyna u soo ahaa wasiirkii deegaanka. Natiijada waxay u badan tahay inay saameyn ku yeeshaan si gooni ah dhibaatooyinka dhaqaale uu sababay sicir bararka saldhigay dalkan Turkiga ee gaaray 70%. Kurdida iyo kooxaha Islaamiyiinta ee ka soo horjeeda siyaasadaha iyo qaabka waxqabad ee dawladda, kuwaasoo rajeynaya inuu dhaco isbeddel. Erdogan ayaa awooddiisa oo dhan isugu geeyay doorashooyinka, isagoo ku wareegayay maalmihii ugu dambeeyay dalka oo dhan si uu ula hadlo dadka gaaraya 85 milyan oo ruux, isagoo qabanayay isku soo baxyo ololo doorasho oo mararka qaar gaaraya ilaa iyo 4 banaanbax maalinkiiba oo madaxweyne Erdogan ka qaybgalay oo halkaas dadweynaha kula hadlayay si shakhsi ah. Isagu waxa uu si fiican ugu hiiliyay musharaxiisa Istanbul Murat Kurum oo ah wasiir hore oo aan aad loo aqoon, kaasoo aan ka soo muuqan jirin goobaha uu fadhiyo madaxweyne Erdogan. Rajada Erdogan ayaa aad u sii ballaaratay kadib markii uu burburay isbahaysigii weynaa ee mucaaradka, kaasoo uu jabiyay sanadkii hore. Inkasta oo weli ninka lagu magacaabo Imamoglu uu soo jiidanayo codeeyaasha ka baxsan kuwa ka tirsan xisbiga dadka Republikaanka. Sanadkii 2019 ayaa waxaa qayb weyn ka qaatay guushiisa codeeyayaasha ka socday xisbiga Kurdida, balse xilligan musharax ay iyagu wataan ayaaba u tartamaya duqa magaalada Istanbul. Sidaasoo ay tahay, weli waxaa la filayaa in Kurdi badan ay u codeyso Imamoglu mar kale. Muhiimadda istiraatiijiyad ee magaalada waxaa ka mid ah muhiimad dhaqaale, bulsho iyo taariikheed, taasoo ka dhigaysa hoggaanka iyo maamulka magaaladan inay u hanqaltaagaan xisbiyada siyaasadda ee ku tartamaya awoodda Turkiga. Dib u qabsashada Istanbul 31 Maarso waxay noqotay mudnaanta koowaad ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan tan iyo markii xisbigiisu uu lumiyay magaaladan oo ay ku guuleysteen mucaaradku 2019. Ekrem Imamoglu oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka ee qaranka ayaa ku guuleystay aqlabiyadda duqa magaalada Istanbul. Isbahaysiga qaran wuxuu burburay geedi socodkii doorashadii madaxweyne Erdogan uu ku guuleystay, halka isbahaysiga shacbigu oo uu hogaaminayay xisbiga Erdogan ee cadaaladda iyo sinaanta AK Party ee talada haya iyo xisbiga dhaqdhaqaaqa wadaniga ah ee MHP uu weli midaysan yahay oo uu xoog badan leeyahay. Doorashooyinkii hore xisbiga Erdogan ee AK Party ayaa lumiyay gacan ku haynta Istanbul oo kaliya. Istanbul waa ay ka duwan tahay magaalooyinka kale, waxay xambaarsan tahay arrimo kale oo badan. Waa mikrosoomka dalka Turkiga, dadkeedu waa ku dhowaad 16 milyan. waxaa ka jira dhaqamo, fikrado iyo asal dhaqan dhaqaale oo kala duwan. Sidoo kale magaaladani waa dariiqii uu Erdogan u maray madaxtooyada Turkiga uu ku noqday hogaamiyaha Turkiga sanado badan. Erdogan ayaa duqa magaalada Istanbul loo doortay sanadkii 1994. xulafadiisa ayaa haystay magaaladan ilaa uu duqa xilliga kan ee Istanbul Imamoglu uu gacanta ku dhigay. Taasi waa sababta ay madaxweyne Erdogan macno kale ugu yeelanayso
magaaladii uu ku dhashay kuna barbaaray siyaasadana uu ka soo galay isla markaana uu duq magaalo ka soo noqday. tusaale ahaan isla markii uu madaxweyne Erdogan ku guuleystay doorashadii madaxweynenimada ee bishii May ee sanadkii la soo dhaafay, Erdogan markiiba waxa uu bilaabay ololaha uu dib xisbigiisa ugu soo celinayo gacan ku haynta magaalada weyn ee Istanbul. diyaar ma u nahay inaan ku guuleysano Istanbul? ayuu weydiiyey dad aad u xamaasadaysnaa isagoo saaran bas dhex marayay taageerayaashiisa. bannaanbax ka dhacay magaalada toddobaad ka hor doorashada ayuu Erdogan ku yiri sidan: Istanbul waa hantida iyo tufaaxa isha dalkeena, isagoo muujinaya hamiga uu qabo in xisbigiisu mar kale uu ku guuleysto duqa magaalada Istanbul. madaxweynaha Turkiga ayaa u magacaabay wasiirkii hore ee deegaanka Murat Kurum inuu noqdo musharaxa duqa magaalada Istanbul ee xisbigiisa AK Party, isagoo u wakiishay inuu dib u qabsado Istanbul oo uu sii xoojiyo awoodda xisbigiisa AK Party. Kurum oo 47 jir ah waxa uu soo noqday wasiir 2018 ilaa iyo May 2023 markaasoo loo doortay baarlamaanka Istanbul xildhibaan ahaan. Kurum waxa uu ku dhashay magaalada Ankara. waxa uu ahaa injineer dhinaca dhismaha ah oo tababar u soo qaatay arrimahan. waxaa dhalay aabe ka soo shaqeeyay isla wasaaraddii uu sanado badan hogaaminayay. Kurum ayaa ku takhasusay isbeddelka magaalooyinka iyo horumarintooda. haddii uu ku guulaysto duqa Istanbul, waxay imanaysaa arrintani iyadoo xukuumadda Erdogan ay ku dhawaaqday dubuhabeyn ballaaran oo lagu samaynayo dhismaha magaalada Istanbul si ay uga dhigaan magaaladan mid adag oo ka hortagta masiibooyinka dabiiciga. ninkan u tartamaya iminka duqa magaalada Istanbul waxaa lagu tiriyaa inuu hormuud ka ahaa dadaaladii ay dowladdu ku doonaysay inay wax uga beddesho magaalooyinka, gaar ahaan dhinaca dhismayaasha wanaagsan iyo dib u dhis lagu sameeyo goobihii ay horay u saameeyeen dhulgariiradu, sida 10 gobol oo ay burburiyeen dhulgariirkii bishii February ee sanadkii hore. dadka dhaleecaya waxay ku eedeeyeen duqa hadda xilka haya Imamoglu inuu ku guuleystay inuu wax ka xalliyo dhibaatooyinka isdaba joogga ah ee ka jira magaaladan oo ay ka mid yihiin qorshayn la'aanta magaalada, maareynta dhibaatooyinka iyo isu socodka. isu soo bax dhowaan ka dhacay magaalada Istanbul, musharaxa ay dowladdu wadato Kurum waxa uu yiri: Istanbul sanado badan waxay gacanta ugu jirtay maamul aan xirfad lahayn, karti lahayn oo caajisa. magaalada Istanbul maalinba maalinta ka dambaysa way dhibtoonaysaa. nasiib darro magaaladan qaaliga ah waxaa maalinba maalinta ka dambaysa ay ku lumaysaa gacanta dad yar oo jaahiliina. laakiinse maanta fursad ayaan haysanaa, waxaana bedeli doonaa waxyaabo badan. magaaladeena Istanbulna waxaynu qaadsiinaynaa dhabbaha horumarka, waxayna si fiican u soo jiidan doontaa indhaha caalamka oo dhan. magaalada Istanbul oo laha xisbiga AK Party wuxuu si gaar ah u ahaa isbeddelka magaalooyinka mashruuc xami ah oo dalka oo dhan laga hirgeliyay oo lagu bedelayo dhismayaal duuga oo burburay, kuwaas oo lagu bedelayo dhismayaal cusub oo casri ah. Istanbul waxay ka mid tahay magaalooyinka halista ugu jira inay ka dhacaan dhulgariiro, waxaana Turkigu uu xoojiyay dadaalada lagu dardargelinayo mashruuca isbeddelka kadib dhulgariirkii khasaaraha badnaa ee 6 February dhacay. Istanbul waa wadnaha dhaqaalaha ee Turkiga. Istanbul waxay si weyn uga qayb qaadataa wax soo saarka guud ee dalka GDP, taasoo ka dhigaysa mid furo u ah qaabaynta siyaasadda dhaqaalaha qaranka Turkiga. waxay horseed u tahay koboca dhaqaalaha iyo horumarka dalka. magaaladu waxay leedahay ganacsi fiican oo horumaraya oo ay ku jiraan shirkado waaweyn, hay'ado maaliyadeed iyo kuwo bilow ah. ku guuleysiga doorashada Istanbul waxay la macno tahay inay galaangal u yeeshaan kuwa tartamaya awooddan dhaqaale, awoodna u siinaya xisbiyada siyaasadda inay fuliyaan ajendayaashooda iyo siyaasadahooda dhaqaale. Istanbul waxaa hadda ku sugan in ka badan 10.5 milyan oo qof oo xaq u leh inay codeeyaan marka loo eego tirooyinka golaha sare ee doorashada. ololayaashii isu soo bax ee ay sameeyeen Erdogan iyo musharaxa duqa Istanbul Kurum waxay hoosta ka xariiqeen in magaaladu aysan lahayn dulqaad ay ku lumiso 5 sano oo kale. halka ninka ay xifaaltamayaan Imamoglu uu aaminsan yahay inuusan lumin doonin sumcaddii uu ku lahaa codbixiyaasha. si guud in ka badan 61 milyan oo qof ayaa xaq u leh inay codkooda dhiibtaan doorashooyinka dowladaha hoose ee Turkiga. 1 milyan oo dhalinyaro ah ayaa codkooda dhiibtay markii ugu horeysay doorashadan. in ka badan 50% codbixiyaashu waa haween,
halka ragguna ay yihiin 49.1 boqolkiiba. marka loo eego tirakoobka in ka badan 3.3 milyan oo codbixiyaal ayaa da'doodu tahay 75 sano jir iyo ka badan. inta badan codbixiyaasha ayaa ku sugan 30 magaalo oo waaweyn, halka in ka badan 13.5 milyan oo codbixiyaal ay codkooda ka dhiiban doonaan 51 magaalo oo kale.